la ogaaday 5 xidig oo Real Madrid ka tirsan oo ka hor yimid hab maamulka Xabi Alonso. Inkasta oo Real Madrid ay hoggaanka u hayso horyaalka La Liga, haddana warbixin cusub oo soo baxday ayaa sheegaysa in dhowr ciyaaryahan aysan ku faraxsanayn tababaraha cusub Xabi Alonso. Sida laga soo xigtay warbixin ay daabacday saxaafadda Isbaanishka, 5 ciyaaryahan ayaa la sheegay inaysan ku qanacsanayn qaabka Alonso uu maamulo kooxda. Inkasta oo guulo waaweyn gaaray 4 bilood oo kaliya oo uu xilka hayay, intii lagu jiray 12 kulan ee ugu horeeyay horyaalka La Liga, Real Madrid ayaa guuleysatay 10 jeer, hal mar barbara ayay gashay, halka mar kaliya laga badiyay. Sidoo kale tartanka Champions League waxay guuleysteen 3 ka mid ah 4 kulan ee ay ciyaareen. Inkastoo guuldaro 1-0 ah ay kala kulmeen Liverpool toddobaadkii hore. Si kastaba, inkastoo Los Blancos ay 3 dhibcood ku hogaaminayaan horyaalka La Liga, haddana xaaladdu si buuxda uguma degna Santiago Bernabeu. Axaddii Real Madrid ayaa dhibco lumisay kulankii ay la ciyaarayeen Rayo Vallecano. Inkastoo Jude Bellingham, Kylian Mbappe iyo Vinicius Junior ay ciyaareen, haddana kooxda ayaa ku adkaatay inay jebiso difaaca kooxda Rayo Vallecano. Saxafiga Mario Calderon ayaa qoray, waxaa si cad loo arkay in dhowr ciyaaryahan sida Vinicius, Bellingham iyo Courtois aysan ku faraxsaneen go'aamada macalinka ee la xiriira qaabka kubadda looga bilaabayo gadaal, halka kuwa kale sida Federico Valverde iyo Eduardo Camavinga oo aan si joogto ah boos u helin, isla markaana laga ciyaarsiiyo meelo kala duwan, ayaa sidoo kale u muuqda kuwa xiriirkii ay la lahaayeen Xabi Alonso uu daciifay. wanaagsan saaxiibayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warbixintii koobneed ee aan uga hadlayay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalka nala soo gaartay, ilaawin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena sii share gareyso. Haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biiro ka mid noqo asxaabtan ugu xiran. Mahadsanid.